anigoo aabbahay la yaaban ayaa aabihiisna ii yimid. marka ninkaa waxaa soo dhan war ka keenay markaa waxay ahayd dhibaato haysatay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhowaada mar kale iyo muuqaal cusub. magacaygu waa cabdisaaq xaashi, halkaa nagala socotaana waa cabdisaaq janaal. fadlan hadduu muuqaalkan ku soo gaaro sii shargaree oo gaarsii CBB ama cayayaanka baraha bulshada. dhag ku sii muuqaalkan like saar, siina shargaree. haddiiba aad ka hesho oraahdeyda waa inaad sii shargareedaa, komedigana aad nagala wadaagtaa. ra'yigaaga waa inoo muhiim. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo ku soo kordhay maantay magaalada muqdisho iyo wararka ugu dambeeyey ayaan ka hadlaynaa, iyo duqa magaalada muqdisho oo joojiyey lacaga badan oo la bixi jiray gobolka banaadir si sharci darro ah. yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ah gudoomiyaha duqa magaalada muqdisho ayaa maanta wuxuu soo ka hadlay ama joojiyeba lacagihii dhammaan lagu bixi jiray gunooyinka gobolka banaadir. dadka gunooyinkaas qaada jiray waxay iskugu jiraan dad ka hadla youtubada, facebookyada, dad ka qabta lifeaf mataqaanaa clubhouse-ka, meelo badan ayay iskugu jiraan. dhammaantood waxay ku qaadi jireen mushaar, lacag joogto ah oo billo ah oo kor u dhaafeeda ilaa 10,000 oo doolarka Mareykanka ah ayay ku qaadi jireen. haddaba maxaa dhacay? waxaa dhacay inuu joojiyey gudoomiyaha duqa magaalada muqdisho injineer madaale inuu ku hor yimid dhammaan saxiixii hore ee Cumar Finish dadkii lagu sii jiray lacagaha CBB-da in dhammaan laga mamnuucay gobolka banaadir inuu bixiyo. waayo markii hore lacagtaas kama bixi jirin qasnada wasaaradda maaliyadda, kama bixi jirin waxay ka bixi jirtay qasnada maamulka gobolka banaadir, halkaas oo aanan cidna xisaab xil cad ka haynin xilligii uu hogaaminayay Cumar Finish. meeshaas waxaa ku qatanaay dad badan oo muslimiin oo Soomaaliyeed. xaqoodii ayaa waxaa la siinayay dad ka difaaca dowladda baraha bulshada ama cayayaanka baraha bulshada wax loo bixiyey CBB. markaan sidaas leeyahay maanta waxaan u wadaa tacsi weyn oo ku dhacday maadaama laga joojiyey dhaqaalihii ay ku hadli jireen, ayna ku soo daldalmi jireen maalin iyo habeen, ay la soo geli jireen TikTok ha noqoto, YouTube-ka ha noqoto, Facebook ha u badnaadaano iyo Clubhouse-ka. dhammaantooda maantay madaxweyne foorinayaan sababtoo ah dhaqaalihii ay ka qaadan jireen gobolka banaadir oo sharci darrada ahay waa la joojiyey. dhammaan mid iska dhiga sheekh, mid iska dhiga abwaan, mid iska dhiga difaaci dowladeed, mid qoto lacag ku qaata, kulli waa la mamnuuc gareeyey. lacagtaasna waa la joojiyey. nimanka odayaashana waxa u yaala tacsi weyn. halka ay CBB-da cusub ay raadinayso inay mataqaanaa ay lacag ku qaataan difaacidda dowladda xasan sheekh maxamuud, taasoo aana marnaba la ogoleyn. markii laga diiday in lacag lagu qaato difaaca dowladda xasan sheekh maxamuud, ay difaacayaan 2 nin oo odayaal ah oo difaaca beesha hawiye ku magacaabnaa jiray oo la kala yiraahdo balwaan iyo mataqaanaa Cabdiqaadir Booska. maadaama ay gobolka banaadir ay ka waayeen lacagtii difaaca CBB-da dowladda cusub, ay dhaheen waa loo bogleynayna. marka si ay lacag ku helaan, 2 shaatiyaal ay noqdeen, 2 kaarayaal, marna amaana, marna ka soo horjeesta, marna beelaha madaxa soo geliya. marka howshaas adinka waa khasaartay ayaan leeyahay. odayaasha ah waxay doonayaan Cabdulaahi Balwaan iyo ninka la yiraahdo Booska inay ku marsiiyaan difaaca xasan sheekh maxamuud si ay lacag u helaan baraha cusub ee CBB sameeyaan. laakiin taas waa la diiday, gobolka banaadir wuu diiday
maadaama uu gobolka banaadir uu diidayna waxay u weerareen heb beeleed jufo hoosaad ayagoo ka dhacsanaya qarashkooda. waxay isku dayeen inay aflagaadeeyaan xildhibaanada beelaha habargidir, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka madaxtooyada, wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo xildhibaan saabir shooriye, xildhibaan cabdiraxmaan oodawaa, ayagoo leeyahay xasan sheekh dowladdiisii waxay afduubtay sidii inay ku helayaan bilad dahaba. laakiin taas lacag way ku heli waayeen, wayna u shaqey weyday, wayna ku ceewoobeen, wayna ku kashafmeen. halka maanta ay CBB-dii horena u taala tacsidaas aad iyo aad ayaan uga xumahay, maadaama aad ku tiirsaneed nin lasoo magacaabo markii hore. waxaa ka fiicneed intaa ku tiirsanaa lahayd nin lasoo magacaabay inaa adiga shaqaysato, xoogaaga aad cunto, ku faanto, maadaama aad ku calaacalayday taageerida nin shaksi ah ama urur aad taageeraysa gaar kuu ah, lacagna ku weysay. taas waxa way tahay waa wax xun, maadaama aad urur taageerayso waxaa lagu taageeraa oo dhaqaalo lagu siiyaa ururkaas sida adduunyada oo kale. adduunyada waxay dhaqaale ku bixidaa, maadaama maanta urur xisbi siyaasadeed aad taageeraydo waa inaa ururkaas aad ka noqoto xubin. 2 aad lacag ku bixidaa, maaha inaad asaga lacag ka qaadato. 3 waa inaad naftaada iyo shaqadaada u hurtaa oo aad taageertaa ururkaas si uu horumar ku gaaro. laakiin ma ahan inaa caay iyo aflagaado aadadaa cayna aad lacag uga qaadato. taas taageero maahan. nin walbana wuu ka dharagsan yahay siyaasiya inaa beri lacagta uu kugu sii dad caydiisa, asagana aad beri lacag ku qaadanayso. taas nin walba uu ogyahay, wuuna ka dharagsan yahay, wayna sameeyaan Soomaalida. haddaba marka balwaan iyo halkan waxaan kala hadlayaa boosto waxaan leeyahay waxaad joogtaa Finland, ciirtaada way kugu filan tahay. 150 kaaga eero ciirtaas ka qaado. halka uu mataqaanaa balwaan uu ka shaqeysan karo dukaamo South Africa, uuna gadi karo asagoona dadna aflagaadeynin, dadna la dagaalin. difaaca dowladdan igama rabto. difaaca dowladdan waxay ka rabtaa dadkeeda gudaha iyo ciidankeeda iyo rag iska dhicinteeda. halka CBB-dii ay maanta tacsi u taalo, lacagtiina ay ka go'day, saxiixii uu saxiixay ninka la yiraahdo Cumar Finishna uu hawadu galay ma soconayo. Cumar Finish iyo saxiixiisii iyo Cali oo israaceen Turkiga kalaasada. laakiin maanta waxaa soconaya madaale waaye dhayn ninaa daalaynin. abuu wuxuu soo maray xafiis walba, wuxuu soo maray xisaabiyo walba, wuxuu soo baaray inta CBB lacagta la sii jiray, kadibna wuxuu soo saaray quful 000 oo lagu daray 000. lacagtaas wuu xiray, wuuna joojiyey. halkaasna waxaa ku guuleystay madaale duqa doomiyaha gobolka banaadir Yuusuf Xuseen Madaale. والله إنه سدالين halka CBB ee madaxa maanta fiirinayso baraha bulshadana ay mar dhow maadaama ay farmaajo ku taageerayeen qadiyad. haddii farmaajo hadda warkiga dhageysta, haddii maxamed cabdullaahi farmaajo ay qadiyad ku taageerayeen way joogi doonaan. haddii lacag ku taageerayeen waxaa arki doonaa ayagoo meelo kale qodqoteynaya oo si kale u raadinaya. waana qaanaa nimankaas, waa ii tigsantihiin, adina waa istaqaanaa, ana waa ku aqaanaa, dadkana way ku yaqaanaan. bal waxaa ogaanaynaa CBB-a meeshii aad ku dambeydaan ma sii wadi doontaan. hadda waaye duqbilow wuxuu u go-ay beesha ogaadeen, maadaama uu reer wasaaraha ogaadeen noqday. ogsalaam duqbilow waxaa tahay nin dhiig badan. ogsalaam salaan sare war muuqaalka duqbilow hala gaarsiiyo, maadaama markuu xamse uu noqday reer wasaaraha oo duqbilow talaagle isku bedelay
uuna ka yeecay baraha bulshada CBB-da lacagtii ka goosatay maadaama uu nin ogaadeyna ou noqday waxna ka soo sheegi waayey halkaas ayuu ku macsalaamiyey CBB-da waxaa jirto CBB lacag la-aan ah kusoo dhawow taageer ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waa nin reer Cabdulla ah garabkaaga waaye soo dhaweey saasaa ku leeyahay halka maanta CBB-da kuwa iska dhigaya oo raba inay Xasan Sheekh jiljilaan lacagna uga raadiyaan ma soconayso dadka dadka waxaa jira isku dayaya inay isku adeegsadaan magaca beesha habargidir ayagoo iska dhigaya nina inay jecel yihiin nina inay mataqaanaa ay sokeey u yahay nina xabiibkooda uu ka dheer yahay mahad dadka haysta list bay ku jiraan ogaada taas nin kasta oo mahad wax ka sheegay meel bay ku qoran tahay ahey waa lagula xisaabtami doonaa si cad oo weyn waxaadan ogeyn markaad been ku dhaarato ama kitaab kor u qaadato ama hoos u dhigto adig ku taala maxamed bashiirow waa meel kugu qoran tahay darbi dheer kugu qoran tahay si fiican dhagahaaga dhay ha ugu tiraahdo si fiican ha ugu socoto kitaabka aad qaadatay farxaan allah u naxariisto laakiin dhaartii aad martay cadaynteeda adaa lagaaga fadhiyaa adiga ayaa lagaaga fadhiyaa saas ugu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wartii shalgareena calaa shaydaanku yaala muuqaalka